mahad sharaf waxa mudan hablihii guntaday oo u guntaday ciidanka iyaga oo isxilqaamayaal ah oo ka tirsan qaybtoodna ay ka tirsan tahay garabka SSB original waxa weeyaan waxaad keeneen gabdhahaas raashin waxay keeneen biyo waxay keeneen sharaab keeneen dharkii waxay keeneen timirtii waxa weeye ku dayasho wanaagsan hablaha maanta intaasoo adhigii iyo geelii iyo raashinkii keenay ku dayasho wanaagsan aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin horta waxa weeyaan iyagoo wada soconayay oo hablo wada shaqaynayay haddana mahad gaara waxa iska leh Muna Axmed Maxamed arinta mugeeda lahayd iyo Xaliima Cismaan Faarax maxay tahay Canab Salaad Faaduma Maxamed Cumar Khadra Maxamed Cumar hablahaas waxaan leenahay ilaahay arinta idin u guntateen oo ku guulaysateen ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro mahad labaad waxa leh dadka agabkan bixiyay oo gabdhaha ah iyagana waxaanu leenahay ilaahay ha idinku daro miisaanka xasanaadka hawshana halka ka sii wada annana heliyaho aanu qari karo waa la garab taaganahay nin xoog keena iyo mid ciidan keena iyo mid hadal keena iyo mid hawl keena halkan waxaan isugu nimi deeq taakulo ay wareejinayaan hablaha SSB taas oo ay ugu talagaleen ciidamada jiida hore jooga taas oo isugu jirta raashin noocyadiisa kala duwan hilib geel ari intaba leh iyadoo ay wareejinayaan hablaha SSB garabka halka nala jooga ee hadaafnimo degan ilaa iyo inadan iyo ereyadan waa uga mahadnaqaynaa dadka dibadaha oo iyana deegaanka u dhashay oo iyana maalin walba ku howlan howlahaana waa u mahad celinaynaa dhammaan iyo dadka ciidamada isgarab taaga waxay noogu wareejiyeen maanta noo keenay hablaha gobolku xoolo nool oo geel leh ari leh raashin leh timir iyo sharaab jaakado aad baan uga mahad celinaynaa markii koowaad maaha waxaan leenahay hadaalina haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadaale aad baan uga hambalyeynaa hablaha hadiyo goor u taagan inay garab istaagaan bulshadooda iyo ciidamadooda labadaba ma aha waxqabadkoodu ciidanka qura aad waxay uga shaqeeyaan Soomaaliya burbur baa ka dhacay waa ogtihiin habluhu kaalin weyn bay wax ka qaateen nolosha dadka Soomaaliyeed dhammaantood marka khaas ahaan anaga gobolka Sanaag miisaan weyn bay habluhu nagu leeyihiin hadday tahay xag caafimaad oo bulshada weynta ah hadday tahay xag amni oo ciidamada ah hadday tahay xag maaragtay taakulo mid walba hablahaas ilaahay miisaanka xasanaadka aakhiraha ugu daro ma shal kuma soo koobi karo haddii waxqabadkooda ilaahay baan ka abaal marinaya waana ku mahadsan yihiin hawlka madaal wali waa hogadii arrinkan aadna soo gaarsiiseen raashinkan iyo agabkan iyo sahaydan aariga ishinbale waa idinka mahad celinaynaa dhammaantiinba hablo iyo wiilal qurba joogta daljoog iyo qolqol joogta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laakiin waxaan leeyahay danteenu waa mid waana tan bacad ku taagantay idinkuna aad u shaqaynaysaan sidaas aynu ahaanaysa baan leeyahay